weyn wax runtii muxuu ahaa ii sheega afka lagu soo koobi karo waxaan xusiisanaa waqtiga dheeraaya aad soo qaadateen waxaan xusiisanaa meelihii kala duunaa iyo aqoontii kala duuneeda aad soo qaadateen waxaan rajaynaa ilaahay idankiisa inay noqoto taasi mid aad ku anfacdaan qaranka Soomaaliyeed mid aad ku anfacdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mid aad cadawga iyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ku heesta aad uga dulqaadaan oo dalkaana uu ku noqdo dal amni iyo xasiloonidiisa muxuu qof walba muwaadin oo isku halay karo aad iyo aad u mahadsan wasiirkeena gaashaandhigga oo runtii saakay nagala soo qayb galay soo dhaweyntiina iyo dhammaan saraakiisha halkan taagan oo ugu horeeya taliyaha dugsiga hoggaanka tababarka military ataajaha u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee halkan nagula sugan iyo guud ahaan saraakiisha kale runtii waxa ay dadkaanu noo qabteen wax af lagu soo koobi kara ma ahan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin adinkana waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa mar walba xusiisnaada wixii ay soo qaateen kuwa xusiisnaada marxaladii kala duunaaya ay soo mareen iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ka sugayo ee saaka halkan u taagantiin waxaan idin leeyahay mar kale ku soo dhawaada dalkiina hooyo waqti dhow hadii Ilaahay yiraahdo sida ducfooyinka idinka horeeyaba ay u shaqo galeen adinkana waxaad ka shaqo gali doontaan qaybo dalka kamid ah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan idin rajaynaa guul iyo caafimaad waxaan ku kulmi doonaa meel kale hadii Ilaahay ogolaado iyo waqti kale aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda soo dhawaada dalkiina hooyo ku soo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage military attachee-ga dawladda walaalahana ee Turki Yilmaz taliyaha Turksom ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada dhammaan askarta dufcadii guutada gorgor oo maanta soo gaartay 26 ah bishii 9aad 2020 waxaan idin leenahay soo dhawaada insha Allah ta'ala waxaan subaxnimadan aroortaan u imaanay waxay tahay taliyaha iyo wasiirkii idin imaadeen macnaheedu waxay tahay in dalkiina hooyo aad wax u soo barateen ee ciidankiina ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan idin ku soo dhaweyno waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin soo dhawaada insha Allah ta'ala dufcooyin idin ka horeeyay ayaa jira sidiina oo kale aan u soo dhaweynay oo waagi ay idin direynay sidiina oo kale aan u dirnay oo runtii waajibaadkooda soo gutay oo haddana waajibaad sii gudanaya oo dalkaani u adeegay kuwaas ayaad ka mid tihiin insha Allah ta'ala ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ilaahay aan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa rantii lagu farxa ummadda Soomaaliyeed ay ku farxaan inaad noqotaan insha Allah ta'ala ilaahay idinkiisa waa noqonaysaan waa mahadsantihiin runtii sida juhdiga adag aad u bixiseen uguna diyaar garowdeen inaad ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed diyaarna aad ugu tihiin inaad dalkiina dadkiina baad xureysaan insha Allah ta'ala hool adaga idin sugaysa oo aad iyo aad u ballaaran ayaa ummadda Soomaaliyeed idinka sugaysa waxaana ka mid tihiin dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waad ogtihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meeshuu ka soo bilaabday General Daawud waagu loo dhiibay sidoo ahaa iyo waayadii damba 8 sidoo noqday maanta waxaan taaganahay dib u dhis ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib loogu dhisaayo marka waxaad tihiin base ama bilow aad iyo aad u wanaagsan oo astaan u ah dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa waqti dhow oo aad iyo aad u dhow inaan noqono libaahyada Afrika sidina lagu yaqaanay sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed aad u hooydeen mid la mid ah inaad gaartaan oo aan gaarnaan rajaynaynaa waqtiga dhow insha Allah ta'ala waxaan nasiib u hesheen taliya oo dhalinyaro ah oo idinka oo kala ah oo yaqaana baahidiina dhibaatadiina garab istaagayo oo ka turjumay waxaad kale oo haysataan wasiiro ama wasiir wasaaradda gaashaandhigga oo nin dhalinyaro ah oo asigana runtii ay ka go'an tahay in ciidankan dib u dhismo inuu ciidankani oo dib u yagleelo oo runtii awoodii uu lahaan jiray inuu yeesho
aad iyo aad u jecel habeenii maalin taasoo daliil u ah maanta subaxnimada inaan idiin imaanno runtii waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo oo meesha ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo runtii asigana qayb ka ah inuu ciidankaani dib u dhismo haddaa leadershipka uusan raalli ka ahayn maanta meeshaa soo gaartay ma soo gaareen marka taas waxay daliil u tahay inuu madaxweynihiina uu diyaar u yahay inuu ciidankan dib u dhismo ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo wasiirkii saas oo kale taliyihii oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka go'an tahay marka taas waxay daliil u tahay inaan dhabbadii aan hayno oo ciidankeena dib ugu dhismi lahaa insha allahu tacaala aad iyo aad aad u mahadsan tihiin xaqiiqdii ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay ciidankooda garab istaagaan maanta saraakiil xigeenaha baxay waxaa noo imaaday ii sheeg cutub oo ka tirsan guutada gorgor berritina kugu kala imaan doona maalmaha xigana kugu kala noo imaan doona insha allahu tacaala marka sidaa daraaddeeda astaantii iyo waxaan haynaa waddadii waxaan haynaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka soomaalida waxaan leeyahay oo walaalaheenna ee dibadda iyo dalkaba joogaan ciidamadooda inay garab istaagaan dal aan ciidan lahayn dal ma aha ciidanku waa astaanta qaranka marka ciidankeenna aan garab istaagna aan u ducayno waana ducaysantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu